horta waxaan ahay jaamacadda nugaal kulliyadda horumarinta bulshada ayaan bare ka ahay. waxaa kaloo aan ahay madaxa quality assurance-ka jaamacadda ama taya dhowrka jaamacadda xilka tayeynta. intaa waxaa dheer inaan ahay qoraa buugaagta noofalada iyo gabayaa luuqada carabiga, ingiriiska iyo soomaaliga ku gabiyo. marka buugaagteyda jaamacadaha qaar oo lagu dhigaa jiro, jaamacada maraykanka ku yaalo, jaamacada sudan ku yaalo, shirkadan amazon online ba lagu iibiyaa. intaa unbaa marka macluumaad. bal horta wax xoga ma ka haysaa saameynta tahriibku uu ku leeyahay dhalinyarada dugsiyada sare ilaa iyo jaamacadaha xilliga ay dhiganayaan? walaal, sida dhabta ah aada iyo aad baan xog uga hayaa. maxaa yeelay anigu dalka sudan oo ay maraan dad badan oo soomaaliyeed oo tahriibo oo naftooda halliga ayaa waxaan ku noolaa muddo aada u dheer. waxbarashadeydii jaamacadda iyo masar ku qaatay. marka dhibaatooyin badan oo tahriibka ka dhacay xagga aad baan uga warhayaa. waxyaabaha marka dhibaatooyinka ah oo aad aragtay maxaa kamid ah? dhibaatooyinka aan arkay waxaa kamid ahaa, de waxaad arkaysaa dhalinyaro soomaaliyeed oo gabdha iyo wiilalba leh oo ku bahdilan muxuu ahaa goobaha sida muxuu ahaa xabsiyada oo kale. waxaan arkay gabdho soomaaliyeed oo timaha dhala lagaga xiiray intay soo mareen dhanka koonfurta sudan. waxaan la kulmay gabdho badan oo ii sheegay in lagu kufsaday, oo gabdhuhu marka ay ka baxaan dalkeena ilaa waxay kasii gudbayeen dalal badan, ethiopia, sudan, libya ilaa malta. malta markay gabdhaha tagaan ama libya dhibaatooyin badan bay la kulmaan. marka yani dhibaatada ma yara. tusaalahaan dilka kuwa ugu dhimanaya haraadka iyo oonka, gawaarigii uu kula jabaayo saxaraha, wax badan baa jiro. gabdhahaas marka haddaa la kulantay ma weydiisay baahiyaha ugu waaweyn oo ay u tahriibayaan oo waddanka ay uga tegayaan? wallahi hadda horta muddaan dee soo moogaa oo xilligaan ka hadlayo waa taqriiban 4 sano ka hor. xilliga gabdhaha waxay ii sheegeen qaar aan kula kulmay magaalada khartuum inay kasoo carareen dhibaatooyinkii dagaalkii ka socday dalkeena, oo dagaaladii dee ba'naa ee dalka ka dhacay ee burburka xoogan geystay. marka inay door bidayeen inay naftooda la baxsadaan si ay u helaan meel nolol wanaagsan ay ka helaan, oo meeshaan ay beegsanayaan wadamada yurub. laakiin halista ka sokaysa ma ogo. gabdhuhu waxay qaadi karaan cudur, maxaa yeele markay niman kale gedisan ay kufsadaan waxay halis ugu jiraan cudurrada faafa sida aidiska iyo wixii lamid ah. waan gartay. marka maxaa xala oo loo heli karaa baad isleedahay tahriibka dhalinyarada soomaalida? waxay ila tahay waa arrin mas-uuliyad qaran ah, looga baahan yahay hogaanka sare ee dalka, bulshada qaybaheeda kala duwan, aqoon-yahanada, culimada inay ka qayb qaataan in wacyigelin ballaaran laga soo jeediyo goobaha waxbarashada sidai aad markii hore sheegtay, in lagu soo daro manhajka waxbarashada halista uu leeyahay tahriibka iyo dhibaatada dhaqaale ee burburka ee ka dhalan kara. maxaa yeele waxaad og tahay waxaa tahriibaya ciyaal yaryar ama dhalinyaro yaryar oo laga yaabo hooyadood iyo aabahood inay waxba haysanin ama agoomada ay yihiin. marka la qabsado ee libya lagu qabsado ee nagafo ay ugacan galaan ciqaab culus bay la kulmaan. dhaqaale si loogu ururiyana way adag tahay. marka waxaad arkaysaa hooyooyin badan oo iska ooyayo oo waxba aan gacan ku haynin oo dhibaatada ay aada u saameyso. marka in manhajka lagu daro wax ku saabsan arrimahan tahriibka oo dugsiyada sare iyo jaamacadaha, maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si manhajka loogu soo daro? waxaa loo baahan yahay marka koowaad in la helo dad aqoon leh oo la maalgeliyo, khubaro loo xil saaro, daraasad la sameeyo, baarid aada u ballaaran laga sameeyo, la isku dubarido. sidoo kale waxaa loo baahan yahay bahda sugaanta in gabayo iyo maansooyin guud, ama gabay ha noqdo ama garar ha noqdo ama gurow ha noqdo ama shirab ha noqdo ama wixii lamid ahba in laga sameeyo wacyigelin ballaaran ay noqoto. taana waxaa looga baahan yahay wasaaradda hidaha iyo dhaqanka iyo wasaaradda tacliinta sare inay iska kaashadaan. waan gartay. wasaaradaha waan ognahay waddanka ka jira intay awoodoodu la eg tahay. marka bulshada maxaa saaran annagoo ku horumarayna goobaha waxbarashada dugsiyada sare iyo jaamacadaha? walaal, waxay tiraahdaa soomaalidu muxuu ahaa maamahyo badan oo soomaaliyeed oo waxaa jira haddaad dhimanaysa dhareerka waa la iska duwaaya ugu horeyso. marka ani waxaan aaminsanahay tabaryaridu ma keenays kaama horjoogsanaysa in muxuu ahaa aad dadkaaga badbaadin weydo. ka bulsho ahaan bulshada hadda sidaad og tahay dalka goobaha waxbarashada inta ugu faraha badan waxay gacanta ugu jiraan muxuu ahaa waa private sector oo si gaara loo leeyahay inta badan maamulo, oo burburkii ka dhashay kadib markuu burburkii dalka burburay dee dad baa isxilqaama wax badan bay qabteen. marka dadkaasi dawladdu inay la shaqayso,
hay-aduhu inay la shaqeeyaan, inaa isku tashi waxa la yidhaha in la sameeyo, bulshada lafteeda isku tashato, leanna waa mas-uuliyad wadareed oo mas-uuliyad guud a loo baahan yahay in dadka iyo dalkaba lagu badbaadiyo diintaba. markaan dhanka kala fiirino waalidiinta oo kale maalin walba carruurtoodii baa baxaya, waalidiin kale arkaya iyaguna inay carruurtii kale inta baxeen ay meelahaas ku rafaadsan yihiin, ma hadlayaan, far ma dhaqaajinayaan, ayaga muxuu yahay doorkooda? Wallaahi walaal, waalidku dee sidaad og tahay markuu burburkii dhacay inta ugu badan mas-uuliyaddii waxay dhabarka u fuushay dumarkii Soomaaliyeed. hooyooyinkii guryihii ma fadhiyaan, suuqii bay ka xamaalayaan si ay u helaan qutulyoonkii uu maaragtay ciyaalka ay cuni lahaayeen, gurigii kiradiisa. raggii Soomaaliyeed in yaroo maaragtay shaqo haysta waad arkaysaa, laakiin shaqa la-aanta aada u badan. taana waxay sababtay inay hooyooyin guryaha ka baxaan. marka hooyadu maadaama ay mashquul ku tahay soo saaridii qutulyoonkii iyo noloshii kale, dee dhibaato culus baa yaa wajahaysa. marka waalidku mas-uuliyad way saarantaho, mas-uuliyad waxaa looga baahan yahay wacyigelin joogtaa, la tashi. cunuga dhalinyarada ah ee uu dhalay inuu qofku ula socdo meeshuu ku maqan yahay, xilliguu imaanayo, in reerku asbuucii oo kale kulan uu yeesho oo family meeting la sameeyo si looga tashadaa ama loo ogaado. waad dareemi karaysaa dee haddii la daraaseeyo qofka guriga kula joogo waxa uu damacsan yahay in cunuga yani il gooni in lagu hayo dhalinyarada waan ku talinaya. ma la is oran karaa marka meeshaas waxaa hadda ka maqan xiriirka waalidka iyo carruurta ka dhexeeya iyo is-ogaanshiyaha noloshooda? aada iyo aad taas weeyaan. maxaa yeelay aabihii waxaa laga yaabaa inuu meelaha suuqa uu fadhi ku dirir, hooyadii waxaa laga yaabaa inay suuqa yaanyo ama tamaandho ku iibinayso. marka lagama warhayo. cunuga markuu soo noqdo galabtii ciduu doonuu iska raacayaa. waxaa jira oo dhibaato kale ku haya dhalinyarada Yurub tagay ee ilaahay ka badbaadiyey ee halista badan dhex maray. markay xagga tageen sawiro badan oo yar qurux badan oo meelo yar qurux badan bay soo dhigayaan. marka kuwii kalena way eegayaan oo marka saameyn bay ku yeelanaya social mediahan iyo arrimaha muxuu ahaa goobahan lagu bulsheeyo. saameyn badan oo fududeyn dhanka tahriibkeeda ayagana yeesheen. anoo daba socdo weli midda waxbarashada, jaamacaduhu dad bay soo saarayaan fara badan sanad walba. haddana waxaa laga yaabaa in badan oo kamid ah inay tahriibaan oo baddi ku dhintaan ama si kale ay dhibaato usoo gaarto oo naafo iyo wax lamid ay kasoo gaaraan. ayaga marka ma la is oran karaa laftirkoodu mas-uuliyad bay gabeen maadaama ardayda ay soo saarayeenba ay baxayaan? maxaa faa'iido ah? wallaahi waa runtaa. waxa weeyaan dee dadaal ma yaro, haddana gaabis badan baa jiro. tusaale ahaan anigu haddaan ku siiyo tusaale jaamacadda nugaal madagta ahay kuliyadda horumarinta bulshada iyo hogaaminta, waxaa jiro koorsooyin ku saabsan tahriibka iyo muxuu ahaa migrationka dhibaatadiisa oon bixino. jaamacadda ay bixisaa jira, wacyigelin badan baan ka qabanaa. intii hadda aniga aan joogay 4 sano qiyaastii aan jaamacadda ka shaqaynayay, wax badan baan ka qabanay kuliyadda horumarinta bulshada. markii loo fiiriyo xagga dhanka tahriibka wacyigelin badan, doodo badan baan ka qabanaa. marka taa waxay yaraysay inuu tahriibtii dhanka ardayda jaamacadaha ka baxaya ee hoos u dhacdo oo hadda aan wax badan aan dareemayni in isbedel weyn uu jiro. marka wacyigelintaas oo kale maxaad u sheegtaan dhalinyarada oo aad u tilmaantaan ama aad tustaan si ay u qancaan oo tahriibka uga joogaan? tusaale ahaan waxaan usoo bandhignaa halista nafeed ee horta kow marka qofka uu dalkiisa ka baxa wadan kale uu tago, dhibaatada uu la kulmayo, ama ha noqoto mid dhanka sharciyada ah ama ha noqoto mid muxuu ahaa dhanka muxuu ahaa dhaqanka ah oo cultural shock baa jiri karayo. qofkii wax uuna garanaynin iyo meel uu garanaynin markii uu tago dee waxa weeye duur iyo duwaagba waxaadan garanaynin baa kaaga soo baxa. marka waxaan usheegnaa halista ay leedahay. waxaan kaloo usheegnaa dhaqaala burburka hooyadii iyo reerkooda inaanay awoodin haddii berito uu u gacan galo magafe in sidii looga soo degi lahaa ay adkaanayso. waxaan kaloo usheegnaa saxaraha la marayo ee adag ee libiya udhexeeyo sudan in uu leeyahay halistiisa oo ay iska jiri karaan. wadanka saad og tahay waxaa ka jira jabhadaa ka jira, jabhaduhu afduub buu u gacan geli karaa. hadduu dhankan yeman iyo sacuudi maro sidii oo kale dagaal baa socdo. dagaalada hadda magaaladan aan jooga ee laascaanood kaala hadlayo, dhalinyaro ka baxday oo markay tageen yeman madfac ku dhacay doontii ay saarnaayeen oo sidaa ku dhintay. waxaa kamid ahayd gabadh uu dhalay bare jaamacadda igala tirsan, ilaahay u naxariisto. marka burburka xooga badan ee mid nafeed iyo mid maaliyadeed iyo mid sharafeed ah in gabdhaha la kufsan karayo, wiilasha laftooda in la fara xumeyn karayaa dhici karta. oo dee adduunkan cultureka waa lagu kala duwan yahay, dhaqanka haliso badan baa jira. markaad gormeed bilowdeen barnaamijkan wacyigelinta ah?
wallahi muddaba waan wadnay, waan qabanaa. haddii muxuu ahaa si joogta uma dhaca, laakiin marar badan baan qabanay intaan hadda anigu jaamacadda joogay. doodaha waa laga doodaa, goobaha bulshada ku qabto dhalinyarada inta badan waa la gaarsiiyaa. jaamacadduna dadaalkaas way samaysay. insha allah hadduu ilaah yaraadana waan sii labalaabi doonaa. marka meel baad ku kulansiisaan oo aad ugu sheegtaan, laakiin fasalada gaargaarka iyo waxaas uguma sharaxdaan? qayb bay ka tahay. tusaale ahaan hadda waxaan dhignaa kuliyadda aniga aan ka tirsanahay, horumarinta bulshada iyo hogaaminta, waxaa ka baxa course la yidhaahdo migration, ama muxuu ahaa tusaalooyin course kaloo la yidhaahdo waxaa baxa demography and population studies, oo markii la baranayo cilmigaas waxaa lagu soo qaataa migrationka oo dhowr nooc u qaybsamo, ama socdaalka iyo muxuu ahaa tacaburka, oo noqon karaya tusaale ahaan inuu qofka dalkiisa ka tago dalkale uu tago. markaan halkaa marayno waan soo dhexgelinaa. waxaan kaloon ka sheekeynaa maado la yidhaahdo iyadana refugee studies baa jirta oo baxdo. maadada iyada lafteeda waxaan kusoo qaadanaa qofka qaxootiga ah dhibaatada uu la kulmi karayo markuu baxa. marka qaxootigii inkastoo markii loo fiiriyo qaanuunka caalamiga ah uu ka duwan yahay qofkan, haddana wuxuu soo gelayaa migration qayb buu kasoo gelayaa iyo socdaalkii. marka waxaasoo dhan waan kaga sheekeynaa, waan kusoo qaadanaa. markaad aragteen in dhalinyaradii ay jaamacaddii ka baxayaan ama ayagoo dhiganaya ay tahriibayaan, baad ku darteen inaad ka hadashaan, mise waa wax horay systemka jaamacadda ugu jiray? may systemka jaamacadduba ku jiray, oo kuliyadda aan kuu sheegaya yaa wax badan oo muxuu ahaa subjectya ama koorsooyin quseeya arrintaas ka baxa. marka manhajka iyo syllabuska jaamacadda ka baxa ay qayb ka tahay, laakiin waan sii labalaabnay oo marbo waxaan kusii darnaa, waan sii casriyeynaa oo halisaha soconaya ee nagu xeeran markaan aragno. daraasadaha waa la kordhiyaa, cilmi baaridu way socotaa. marka dhankaa waxaan ka qabanaa wax badan oo wacyigelina. marka intaad bilowdeen oo aad wacyigelintaan bilowdeen, wax dhalinyaro ah oo jaamacadda dhigta oo idin yimid oo rabay inay baxaan oo idin sheegay inay baaqdaan oo kale ma jiraan? ha way jiraan dhalinyaro ku fikirayay, ii sheegay aniga gaar ahaan kuliyadda aan ka tirsanahay maadaan udhiga markaan bixinayo. waxay ii sheegaan waxaa jirta maadooyinka aan dhiga kamid aho la yidhaahdo disaster risk management, oo sidii maareynta musiibooyinka. musiibada in la maareeyo la doonayana waxaa kamid ah tahriibka iyo halistiisa. markaan uga sheekeynen maadada soo bandhigno, ardaydu oon tusno nolosha adag iyo meesha la marayo iyo halista jirto iyo dhibaatooyinka lala kulmayo. dhalinyaro badan oo gabdhihii wiilal balo ii sheegay baa jiro inay maaragtay wax ku qaateen, isbedelna ay sameeyeen, maskaxdoona ay saameyn ku yeelatay markay eegeen halisaha badan ee ka horeeya. ma xasuusataa marka inta kuu timid oo kuu sheegtay 10, 20 ama hadday ka yar yihiin? wallahi qiyaastii intaan hadda aniga ogahay ilaa 2 gabdhood iyo 3 wiil baa ii sheegay. 5taas ardayda baan ogahay oo si gaar ah aniga iigu sheegay arrintaa. kelmadda u dambeysaan ku siinayaa marka, fikir ahaan iyo talo ahaan maxaa kusoo jeedin lahayd? walaal horta adeerga idinkoo aada u mahadsan oon idinka mahad celinayo xiriirkaad ila soo yeelateen. waxa aan ku baaqayaa arrintani waa musiibo. musiibaduna sideedaba waxaa la yidhahdaa 3 nooc bay u kala baxdaa. qolyahan afka ingiriiska waxay yidhaahdaan natural disaster oo musiibo dabiici ah, man made disaster oo musiibo dadku ay sameeyeen, iyo hybrid disaster oo markii labadaba isku darmadaan waxa ka dhalan karayo. marka musiibooyinkan waxay u baahan yihiin mas-uuliyad wadareed dhanka bulshada ah, dhanka maamulada ah, dhanka hay-adaha, dhanka aqoon-yahanada ah. gaar ahaan waxaan tilmaamayaa suganyahanada Soomaaliyeed. sugaantu waa waxa u fudud ee Soomaalidu ay wax ku fahanto, waxna ku fahmi jirtay, waxna lagu kaydin jiray. gabayaaga Soomaaliyeed markuu maanso jeediyo waxay samayn jirtay muxuu ahaa saameyn. marka dhanka sugaanta in wacyigelin laga qabto, in doodo laga qabto, in sugaan badan laga curiyo, telefishinada laga sii daayo, warbaahinta iyo aqoon-yahanada iyo culimada iyo maamulada xukuumadda guud ahaan wixii la iskaashanayo in arrintan loo wada istaago, halisteedana lagu baraarugo, sidii looga badbaadi lahaana laga tabaabashaysto qorshe iyo lala yimaado waxqabad baan ku talinaya. weli hal gabay ma ka tirisa adiga? wallahi way jiraan sugaan aan kala gedisan oo dee aan ku tilmaamay oo muxuu ahaa halista tahriibka inuu qofku dalkiisa markuu ka tago oo meel kale